soo dhawaada saaxiibayaal meel walba naga dhageysanaysaan waa barnaamijkii codka Oblas Inbaya Soomaali alaaba podcastigan waxaan kaga hadalnaa arrimaha ganacsiga khaasatan online-ka iyo faa'iidadiisa waa qaybtii 7 ee season 2 waxaad ka heli kartaan wareysigan iyo wareysiyadii hore kanaalka Maariix Xuseen sidoo kale waxaad naga dhageysanaysaan adeega podcastiga waxaa ila joogta maanta Istaahil Yuusuf Tarabi dad badan way yaqaanaan waxayna kala socdaan baraha bulshada waa hooyo karti badan si gaar ah waxaan ula socdaa dadaalada ay bixisay muddooyinkii la soo dhaafay iyo guulaha ka xaqiijisay online-ka Istaahil waa tababarayaasha ugu saameynta leh kambaniga Oblas Global waxaa sharaf weyn inoo ah inay waqtigeeda qaaliga ay siiso inoogana faa'iideyso fursadaha ay haleeshay soo dhawow walaasha Istaahil kuna soo dhawow codka Oblas Inbaya Soomaali maasha Allah waa dhawaa bay Maariix Xuseen waana ku madsantahay inaa iga soo dooratay 2,000 oo qof maasha Allah inaa iga soo doorato ku madsantahay inaan ka mid noqday codka Oblas Inbaya soo dhawaada waad mahadsantahay Istaahil mar labaad maadaama anigu iyo tiimku aan si fiican ku garanayno waa tuma Istaahil dad badan waxay u baahan yihiin inay Istaahil wax ka ogaadaan Istaahil waa gabar Soomaaliyeed waxaan ku dhashay wadankii hooyo markaan 12 jir ahay aan waxaan aaday wadan Carbeed markii la guursaday markaas kadib aan joogo wadanka Carbeed 12 sano kale oon ilmo ku dhaldhalay marka waxay noqotay wadanka Carbeed xoogaa iska adkaay in noloshiisa marka waxay noqotay inaan xareysan online America inaan aadno maasha Allah wuu noo soo baxay American soo aadnay haddana American ku noolahay waxaan joogaa 7 sano haddana hal cunug oo kala inta ku dhalay halkaasna 4 ku soo dhalay marka 5 cunug aan haystaa marka waa kaasta waxaan rajeynayaa dad badan inay wax ka ogaadeen Istaahil qofka ay tahay maadaama ciwaankan ka wada hadlayna uu yahay sida ugu fudud oo qof walba uga faa'iideysan karo online-ka maadaama technology-gu waxyaabo badan noo fududeeyay Istaahil ay online-ka saameyn intee leeg ayuu nolosheena ku leeyahay waqtigii hore iyo haddaba online-ka saameyn weyn oo ku yeeshay nolosheena wax badan isbedelay technology-yada aad ay isku bedeshay horumar weyn sameysay maxay ahayd dadkii ayagoo guryahoodii jooga ay ka ganacsan karaan ka dalba karaan waxyaalo badan kana shaqeyn karaan iskuuladii xataa hadda online isku bedelay waxyaalihii badnaa online badana hadda mar dhow waxaa laga yaabaaba in online laga dhigo dukaamooyin qaar meelaha aan joogno hadda dukaamooyin badanaa la xirxiray online dadkii online-kiiba jeclaadeenba sida corona u dhacday dadkii guryihii ay soo galeen marka waxay noqotay inay u badatay adduunkii online-ka hadda waa ka ganacsan kartaa online-ka adoo gurigaada joogtado hooshaada haysata canjeeladaada karsanaysid online-ka ka ganacsan kartaa waana uga maarmi kartaa inaa bannaan u baxdid oo kasoo shaqaysatid qof u shaqaysid ama adiga waa fursad uu qof walba kaga maarmi karo waqtiyadii hore maadaama ganacsiyadii hore dadku aad u aaminsan yihiin oo ganacsiyadii private-ka ahaa laakiin online-ku meelo badan buu gaarayaa si fududna dhaqaale waad u samayn kartaa waana horumarka ballaaran aynu gaarnay waqtigan aynu hadda joogno sidee ula jaanqaadi karaa online-ka qofka doonaya inuu ka faa'iideysto waa si fudud inaa online-ka ka faa'iideysatid waxaa lagaa rabaa only inaa haysatid wifi iyo telefoon meel kasta adoo joogtid aad ka ganacsane oo la jaanqaade iyo social media-da waa aragti social media-da waa wada haysanaa telefoonnadeena waa ka buuxaan TikTok Instagram Facebook waxyaalahaas oo dhan marka inta adi lagugu shaqaysan lahay ka shaqayso maasha Allah kambanigan wuxuu ka mid yahay kambaniyada ugu saameynta weyn ee waqtigan qof walba uu ka faa'iideysan karo wuxuuna ku jiraa waxyaabaha aadka u muhiimka ah ee online-ku soo kordhiyay Istaahil maxay ahayd sababtii aad ugu soo biirtay kambaniga Oblas Global xilligaad ku soo biirtana noo sheeg Oblas Global anoo sidii aan idin sheegay guriga iska joogno online-kii adduunka xirxirmay walaashay Naciimo Cabdinuur waxay ila soo wadaagtay mar Zoom call waxyaalo iskula kulmo oo lagu sharaxo kambanigeena marka tiiyaan ka soo qayb galay markaan arkay waxaan arkay maxay ahayd goojo dabiici ah oo fountain of life la dhaho faa'iidada ay u leedahay marka waxaan iri waa rabaa
goojadiyaa raadiyey xoogaa waxay ila noqotay inay qaali tahay marka abay naciimaan la hadlo waxaa idhi see ku heli karaa goojadaas waxay tiri ima onlineka ka gadatid iyo inaa nagu soo biirtid 3 qeybaa lagu geli jira markaas marka waxaan idhi waa idinku soo biiraa se idinkugu soo biiraa marka waxay tiri 3 qeyb mid ka soo qaado waxaan ugu fiican midda oo lifestyle advisor la dhaho sidiyaan ku soo galay markaan soo galay waxaan ii timid goojadii dabiiciga maasha allah waxaa ihaaya lafa xanuunaan qabay lafaha xanuuni jiray waa daalanaa hooyo 5 cunug haysataa ahaa weli caadi qurbo ku nool qurbada waxaa hooyada le wax kasta samayso marka sidii goojada isticmaalay alxamdulillah lafa xanuunkii iga baxay waxaa kaloo ii saacidisay goojadii inaan helay dhaqdhaqaaq iyo energy aan helay iyo haddana inay hurdo fiican isiisay hurdo waa seexa jiray bas ilaahay amarkiis waxaan ahaa jira qof cabbaar iga qaadato inay hurdada ii imaato marka alxamdulillah goojada markaa helay daqiiqadaa ku dhacaa alxamdulillah markaasaan kareemo aan haysana iyo waxaasaan isticmaalay maasha allah si fiican ii caawiyeen waxaan ku soo biiray 2020 bishii 10aad aan ku soo biiray waa waqtigii koronada ay dhacayeen maasha allah si fiican aan uga faa'iiday marka waa kaasa istaahilay maadaama aad ka mid tahay kambani caalami ah oo la yiraahdo Oblos Global sidee bay kugu suurta gashay adoo hooyaa inaad ka ganacsato ilaa 200 oo wadan 100 qof oo Soomaaliyeed aad uga faa'iideyso fursadan qaaliga maasha allah waxay iigu suurta gashay horta waxaan jeclaa inaan isbedel dhaqaale sameeyo waa aragteen wadamada xoogaa hadda aan joogno waa laga shaqaystaa balse si kasta waxay ma ku kafinayaan wax lee kaa dhiman marka markaa arka fursadan isoo hormartay waan qaatay fursadii waa istiqaaraystay ilaaha tawakalay walaashay Safiya Sheekh Yuusuf la dhaho oo walaashay aan la tashtay waxay tiri gal ayadan waxay tiri anna waa kugu soo daba socdaa markay aragtay businesskan iyo sida u fiican yahay marka sidii aan ku soo galay fursadda isbedel dhaqaale aan raadinayo meeshaana ka bartay haddana ku jiraa maasha allah waana ka faa'iideysan doonaa insha allah wuxuun baan ogahay inaad dad badan oo Soomaaliyeed uga faa'iideysay fursadan intaad online-ka ku jirtay Oblos Global wuxuu ka mid yahay kambaniyada sida joogtada looga ganacsado waxyaabaha soo bandhigan ay dadku aad uga faa'iideen muxuu soo bandhigaa Oblos Global maadaama dad badan ay daneynayeen inay wax ka ogaadaan kambaniga Oblos Global wuxuu soo bandhigaa alaabo aad u badan oo kala duwan sida shaambooyinka kareemada daawada cadayga waxyaalo badan kareemada wali caadi kuwa oo skin wajiga ah iyo kuwa korka ah labadaba marka kuwa wajiga maasha allah waa kareemo aad tayo u leh oo fiican wax badan isbedel fiican ii sameeyeen aniga waxaan lahaa jira haarahaaro nabraan wajigayga intay haarahaaro ku reebeen ay haarahaarihii iga fuuleen wajiga marka si fiican oo iiga baabi'iyeen waa alaab ayada dhan dabiici ah haddaa dukaamada kale waxyaalaha ka soo gadata raqiiska ah haddaa marsatid dhowr beri waxba tayana ma lahan waana waxay kugu sii reebayaan waxyaalo kale marka maasha allah si fiican ay caawiyeen waxaan kaloo haynaa goojada dabiiciga aan ka soo hadlay waxaan haynaa alaabo kala duwan haddana waxaa soo socdo kaniini la dhaho Phyto Clinic maasha allah cudurro badan u fiican yahay hadda Fountain of Life uma fiicno cudur bas waa wuxuu caawinay korkaaga kuugu bedela wixii nafaqadii kaa maqneed marka xarumo badanna waa furanaay waxa kale uga duwannahay kombaniyaasha kale MLM-ka waxa uga duwannahay waxaan haysanaa fashionka waa waxyaalaha la xirxirto oo mataqaana qaar oo qaali ah iyo qaar raqiis ah aan ku haynaa oo maasha allah awal aniga waxaan ahaa dadka xirta ma ahayn fashion wax xirta ma ahayn kuula iyo jewelry-ga wax loo yaqaano marka hadda meeshaan ka bartay marmar waxaan ku helnaa xataa free marmar waxaan ku helnaa discount fiican oo raqiis ah kuwii qaaliga dadka Bollywoodka xiran jireen xataa waa xirtaa aniga لأنه مشانا أن وحنكو هلا ديسكاونت في عن أما مرمر فري داشت فري يكو هلسا waa online-ku waxyaabaha aadka u weyn uu soo kordhiyay bay ka mid tahay
adoo gurigaaga jooga inaad fashion nooc walba aad helayso weliba kambanigan kaga duwan yahay kambaniyada kale si fudud oo free ah inaad ku helisid kolley dad badan waxay danaynayaan inay dhaqaale ka sameeyaan online-ka khaasatan kambaniga Oblas Global dhaqaale intee leeg ayaa laga sameyn karaa istaahilay maasha allah dadaalkaaga ku xirantaa hadaad dadaashid waxaa ka sameyn kartaa dhaqaale 60,000 isbuuci sanadkiina 3,120,000 oo weli caadi lagu darin maxay ahayto inaad raacdid safarro kala duwan aad gashid markabaan aan raacnaa waxa kaloo la helaa wax la dhahaa MGRs iyo waxyaalahaasoo badan haddii lagu daro 4 milyan lacag gaaraysa aad ka sameyn kartaa sanadkii dadaalkaaga ku ciilin baan u gartay inay tahay sheekadu waayo qofku hadduu dhaqaale sameynayo waxay u baahan tahay waqti inuu geliyo iyo dadaal qofka doonaya inuu Oblas Global ku soo biiro maxaa looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay inuu niyad saafiya la imaado inuu qaato go'aanka inuu nagala soo mid noqdo waxaa lagu galaa 2 qaybta ugu weyn oo idin sheegay ani ku soo galay oo lifestyle advisor dhahan ugu fiican waa qaybta aad ka sameey kartid dhaqaalahaas 3 milyan iyo ka badanta aad ka sameey kartid ayadaan ugu fiican marka taas idinku la talina inaa ka soo qayb gashin insha Allah ما شاء الله waxaan rajeynayaa inaad ka bogateen istaahil sida idin sheegtay iyo qaabka lagu soo biiri karo qofka doonaya inuu kambanigan ka mid noqdo waxa qabada ma ka hor yimaadeen markay hawshu bilow ku ahayd maadaama online-ku uu yahay platform u baahan dadaal iyo karti iyo waqtiba caqabado badan siiba dadkeena Soomaaliyeed waa la fahay ku jaraya aniga markaan soo galay anoo faraxsan aan waxaan sameeyay inaan la wadaago dad walaalahay ah oo maxay ahayd inay aan ugu tagay anoo socdo u tagay tukaamadooda ugu tagay u geeyo alaabta aan haayo oo maasha Allah ani si fiican ii anfacdaa iribal ka war doona idaheen orda naga tag waxaa la wareegaysid soo cirdeeyeen dadkii aniga asxaabteyda ahay oo telefoonkii iga xirtay oo idahay maba iga qabanayaan maalin kasta cod u duub salaanta xataa waa la iga qaban waay waxa kaloo igu dhacay inay dadkaygii familkaygii ay dhinacyada iga soo galeen ay dhaheen waxaan yaa lagu dhicin iska joog gurigaada fariiso ilmahaaga ka adkaaw saas marka dhibaato badan waaye marka aad rabtid markaad faraxsan tahay oo wixii dadka la wadaag maagto marka lagu soo celiyo waxa ku galay cabsi marka cabsi ay gashay gadaala u noqday waan iska joojiyay inaan dadka la sheer gareeyo marka waxa dhacday inay walaalo meeshaan maasha Allah walaalo lillah ilaahay dartiisa isku jeclaanay aan helay markaas ay caawiyeen ay iga soo bixiyeen meesha aan galay marka si fiican markay ii garab qabteen aan ka soo baxay waxaana ka mid ah walaalahaas abbaaya Naciima Cabdinuur maasha Allah waa gabadhii ii soo bandhigtay kambanigan iyo walaasheen Ifraax Saudi Xasan maasha Allah khayr Allah siiyo ayadana i garab qabato dhiira gelisay waxa kaleento oo jiro traininno oo maxay ahayd free ah oo galno oo maalin kasta oo lagu soo bandhigayo markaasaan maasha Allah sidiyaan traininkii aan galay aan saa ugu jiray haddana waxaaba ka mid ahay walaalaha sharaxa businesska maasha Allah waa gaab weyn oo aad ka soo gudubtay istaahilay runtii qofku markuu la yimaado wax cusub ayna tahay online-ku waxyaabaha horumarkeena gadaal kaga soo biiray waxay u baahan tahay waqti badan inaad dadkii siisid siday waxaad wada kula fahmaan waxaana taa aad kaga badbaaday fikirkaaga positive-ka maantana waxaad taagan tahay heer aad isku filaato oo aad 200 oo wadan aad adeegaaga gaarsiiso waxaanan kugu hambalyeynaya dadaalka aad joogtada iyo go'aanka adag aad weli aad ku sii haysato si aad dadkaaga Soomaaliyeed aad u gaarsiiso fursadan waxaan ogahay istaahilay inaad tahay qof karti badan oo dadaalo badan la sameysay muddo kooban hadda tiimkaagu waa meeqa intee wadanna ayay kala joogaan tiimkayga waa 7 qof waxaana maxay ahaato ay kala yihiin waxay kala joogaan 5 wadan Soomaaliya xataa ku jirtaa
waxay kaloo joogaan Mareykanka, Nairobi, Finland. marka insha Allah mar dhowna waxaan rajaynaynaa inaan wadamo kale iyo Hindiya iyo ka qayb qaadano. xarumo badanaa laga furfura meelo badan. marka waa kaasaa tiimkayga waa intaas abay. maasha Allah wuu sii fidayaa kambanigu dad badan oo Soomaaliyeedna ama dadka kale ee caalamkuba way u baahan yihiin fursadan inay ka faa'iideystaan. waxaan rajaynayaa inaad dad badan uga faa'iideyso fursadan. muxuu yahay higsigaagu istaahilay? maasha Allah higsigayga waxa waaye inaa insha Allah noqdo LD1 mar dhow insha Allah. kadibna aan baabuur helo marka LD1 noqdo. waa darajada ku xigto dukaanka ugu weyn aad soo gashid. taasaana ku fududeyna inaa aad heshid LD1 kaas. markaa helo baabuuraan ku heli karaa inaan free baabuur qaato. maxay ahaato midka ku xigana inaa haddana sii gaaro oo la dhaho LD2 waa lifestyle director wax la dhaho waaye oo kompanigeena darajo wax waaye inaan sii kobco insha Allah. marka LD2 markaa noqdana waxaan ka qayb geli karaa markab free inaan ku soo dalxiisno wadamo kala duwan maasha Allah. kadibna inuu tiimkayga bato oon ka qayb galo dadka 60,000 isbuuci sameeyo sanadkiina 3 milyan xoogaa sameeyo. sidaan maxay ahaato u caawiyo walaalo badan u gaarsiiyo businesskayga iyo inaan sadaqa badan iyo ka baxsado oo isbedel dhaqaalaha aan raadinayay aan sameeyo insha Allah. maasha Allah baa ku rumeeyay dadaalkaaga iyo hamigaaga sare. sida iga muuqata waxaad ku jirtaa wadadii aad ku rumeyn lahayd riyadaada insha Allah tacaala. waanad gaari doontaa maanta aan maalin aan ahayn. qofka doonaya istaahilay inuu kula soo xiriiro halkee ka heli karaa? waxaa liga heli karaa WhatsApp-ka aan aad ugu badanahay iyo Facebook-ga. waxaa kaloo liga heli karaa Instagram-ka iyo TikTok-ga. insha Allah abay Maria idin soo dhigayso page-ka idinkugu soo dhejinayso insha Allah. waan gartay insha Allah tacaala. waxaan rajaynayaa inay waraysigan dad badan ka faa'iideen sidoo kalena ay wax badan online-ka iyo fikradda ka haysteen inay wax badan u bidhaantay baan rajaynayaa. maxay tahay talada ama fariinta ugu dambaysa istaahilay aad dadkaaga Soomaaliyeed aad waxaan la wadaagi lahaa maxay ahaato istiqaaraysta. talada waa maraagaraweysa iyo maraagaarweysay walaalihiin waa idinla socdaan waa idinla hormarayaan fursadan ka faa'iideysta maalintay maalin tahay la'anno mar dhow adduunka inta hormaro aabad la wey doonaa dadkii istaahiloo kale mar dhow la wey doonaa la'anno mataqaanaa haddaa la hormaro waxa waaye adduunku hormaraa shaqadii way sii badane. marka inta aan bisi xoogan la noqonin hadda nala jaan qaada adinkana sidoo kale aad maxay ahaato intaa hadhowdi naga fiirsan lahaydeen TV-yada iyo meelaha. waxaa idinkula tali lahaa inaa haddeertaan nala jaan qaadin ood ka faa'iidaysatiin fursadda intay ku horumarmarayso. waa talo weyn qof walba u baahan yahay insha Allah inaad ka faa'iidaysatiin Virginia waraysigan iyo mawduucaynu ka hadlaynay oo ahaa sidee uga faa'iideysan kartaa online-ka. Podcastigan wuxuu noqon doonaa podcast taxana oo dad Soomaaliyeed oo runtii guulo fara badan ka xaqiijiyay online-kan ku soo casumi doono. istaahilna waxaan rajaynayaa waqtigeeda qaaliga idin soo hurtay inaad wax badan aad ka faa'iideen muddadii online-ka ku jirtay iyo sidii ay hawli u ahayd bilow ilaa dhammaad. istaahilay waan kaaga mahadcelinaa waqtiga qaaliga aad u hurtay dadka sidaad wax badan aad uga faa'iideyso fursadan aad haleeshay. adaa mudan maasha Allah waana ku mahadsantahay inaa isoo raadisay 2,000 xoogaa aan sii maraynaa tiimkayga inaa iga soo dooratay waa ku mahadsantahay by Maria.